geedaha ayaa say u koraan waxa ay u baahan yihiin cadceed fiican iyo carro nafaqo fiican leh oo laga helo maadooyinka ay geeduhu u baahan yihiin oo ay ka mid tahay nitrogenka. haddaba geedaha qaarkood oo ku nool dhul ama carro ay nafaqada ay u baahan yihiin ay ku yar tahay ayaa waxay sameeyaan xeelad kale oo ay ku heli karaan nafaqada ay u baahan yihiin ee ka maqan. waxa ay ugaarsadaan cayayaanka sida duqsiga iyo quraanyada oo kale si ay uga helaan nitrogenka ay uga baahan yihiin. haddaba waa kuwan afar geed ee soo sameeya. geedkan ayaa waxaa loo yaqaanaa pitcher plants. waxa uu leeyahay god aad u dheer oo hoostiisu ka buuxdo aashito loogu talagalay cayayaankii meeshaas ku dhaca uu halkaas ku baktiyo, sidaasna uu geedku ugula baxo nafaqadii. geedkan ayaa waxa uu cayayaanka sida duqsiga oo kale uu kusoo jiitaa urkiisa iyo inuu leeyahay waxyaalo macmacaana ama nectar oo duqsiga iyo xasharaadka kale ay aad u jecel yihiin. goorta uu meeshaas taabto ayaa waxa uu ku siibanayaa oo ku dhex dhacayaa godkaas, sidaas ayuuna geedkaasi u khiyaamaa cayayaankaas. geedkan ayaa waxaa loo yaqaanaa sandu ama drosera. waxa uu soo saaraa waxyaalo goorta uu duqsigu ama cayayaanka kaleta ay taabtaan ku dhega oo aysan iska fujin karin. markaas ayay caleenta geedkan isa soo laabaysaa iyadoo si fiican u qabanaysa cayayaankii. markaas ayay nafaqada ka dhuuqaysaa caleentu oo ay u diraysaa qaybaha kale ee geedka u baahan. geedkan ayaa waxa uu ka baxaa qaaradaha badankood. geedkan ayaa isaga waxaa loo yaqaanaa Venus flytrap. waa kan ugu caansan geedaha xasharaadka cuna. waxa uu dabin u dhigaa cayayaanka. goorta ay dabinkaa galaan oo ay taabtaan timaha uu gudaha ku leeyahay ayuu dabinkaas xiraa oo albaabka ka awdaa si aysan xasharadaasi uga bixin. mar walba oo ay rafato geedkan waxa uu sii adkeeyaa dabinkii ilaa ay aad isugu dhigto. geedkan ayaa waxaa laga helaa gobollada Mareykanka qaarkood. geedkan ayaa waxaa loo yaqaanaa Aldifranda fasciculosa. waxa uu ku nool yahay biyaha. waxa uu ugaarsadaa xayawaanada yaryar ee ku nool biyaha. geedka ayaa waxa uu leeyahay kiis yar oo ay goorta xayawaanadu soo maraan qabanaya oo isku daboolaya oo aanan u ogolaanin inay meesha ka baxsadaan. muddo kadib goortuu baktiyana uu geedku ka faa'iidaysanayo. waxaa kaloo jira noocyo fara badan oo geeda ah oo goorta ay ka waayaan nafaqadii ay uga baahnaayeen dhulka ay ku nool yihiin ay dantu biday inay hilibka cayayaanka cunaan si ay nafaqada ka maqan u helaan. waxaa tirada geedahaas lagu qiyaasay inay gaarayso 600 oo nooc oo ka mid ah geedaha oo awood u leh inay saa sameeyaan.